بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسن داوديال مeel kastoo aad joogtaan maanta waxa aan soo booqanay saraakiishan aad arkaysaan ee ugu horeeyo General Abukar Xaaji Warsame Abukar Xuud General Ali Abdisalaan Colonel Abdullahi Ali Sheekh iyo Colonel Ismaaciil Ilmi Xareed saraakiishan sidaad ka warhaysaan dhamaantood waxa ay ku jiraan dhulkan kaymaha ah oo ku yaala waqooyiga magaalada Beledweyne meel u dhow deegaanka Algaal ee Beledweyne saraakiishan iyo waliba ciidamada ay haystaan waxay aad ugu kacsan yihiin oo ay ka soo horjeedaan hab maamulka Hirshabeelle ee dhawaan la sameeyay waxaana ay horay si adag TV-yada u marsiiyeen warar badan oo ay uga soo horjeedaan iyo kacdoono badan oo ay ka sameeyeen gudaha magaalada Beledweyne waxaan rabaa inaan wareysto General Abukar Xaaji Warsame oo xiriir nala soo sameeyay General markii hore ku soo dhawow telefishinka Goobjoog waxaad bal maxaa soo kordhay telefishinka Goobjoog waa salaamaya Hirshabeelle sababtii loo dhisay oo loo aas-aasay waxay ahayd hiiraan in lagu qabsado aas-aaskeedii hore ma dhicin waxaa baajiyey raggii hiiraan iska lahaa madaxweyneyaalka noqo arrintaas waa hirgeli weysay laakiin waxaa jiray barnaamij tixan oo ah qaabkii hiiraan loo qabsan lahaa oo ka yimid dad Soomaali ah oo aan ognahay inayna deegaanka nala deganeen Itoobiya degan waxaana hawsha hormuud u ah oo wada ninka Soomaali isla taqaano oo caanka ah oo ku barbaxay dhibaatada Soomaaliyeed iyo mushkilada Soomaaliyeed iyo inaysan Soomaali degin ninkaas waa nin la yaqaan caana mana ahani Soomaali ah waa nin Itoobiyaan oo Itoobiya dega haddii qorshaha uu sameeyey oo ahaa in reerka asaga oo ka dhashay ee degan kilinka shanaad in anaga waxba nala wadaagin hiiraan in uu keeno hiiraan wuxuu ku keeni karaa walaalnimo iyo Soomaalinimo laakiin kuma keeni karo qayaano mardabyo iyo calan Itoobiya in laga taago xuduudii Soomaaliya iyo dalkii Soomaaliya Hirshabeelle waxay dhistay markii ugu dambeysay Ali Guudlaawe dhismihiisa waxay ahayd mashruuca ah in deefow ilaa firfir ilaa kalabayr in loo jaro oo loo gooyo dawladda kilinka shanaad calan Itoobiya laga taago Ali Guudlaawe arrintii markuu sameyn waayey oo annaga kacdoonka aan airportka ka celinay arrintii ay saxiix yeelan weysay wuxuu u bedelay ninka odaga ah Itoobiya kilinka shanaad oo la heshiiyey wuxuu la heshiiyey inuu keeni doono mas'uuliyiintii gobolka joogtay ee Hirshabeelle ayagana ay diyaar noqdaan la sameeyo guddi ka kooban xuduudeynta xadka kabacdina la saxiixo warqad ku saabsan 30 kiiloomitir gudaha Soomaaliya in loo soo galo oo calan Itoobiyaan laga taago oo gobolka Hiiraan arrinta ayada waxaa suuro geliyey nin dabageel la yiraahdo oo annaga aan shaqo nagu lahayn nagu mabda ahayn Hirshabeelle anaga waa qaadacnay Soomaaliya og adduunka cid walba og inayna agteeda saxiix ku lahayn Hiiraan haddaan arrin dhooba oo musuqmaasuq ah ayaa loo soo dhiibay meeshii uu la tegey
qoladii kilinkii shanaada timid si aan dawli ahayn oo sharci ahayn in sharciga adduunku waafaqsanayn kan rijinada gobollada uusan waafaqsanayn ayaga waa kilin annagana ayagaan la mid nahay gobolan nahay okay labadeenna gobol wixii aan ku heshiinayno oo dawladnimo ah oo international ah oo calaaqaad ah annagay naga dhexeeyaan laakiin dhul nagama dhexeeyo waxaan ku heshiin karnaa waxbarasho sida ay sheegeen 30 waxbarashaan siinay dheh war annagaa jaamacadaha iyaga meelaan kala geyno wey annagaa idinkoo dhan waxayda bari karna dad hadda dhashaatiin oo walaalaha iyagoo Soomaali ah okay meesha aad ku deeqdeen 30ka 100 anaa idinku deeqaayo waxbarashaha oo kilinka shanaad oo magaalada Hiiraan idinka siinayo jaamacadooda usoo diyaar garooba wixii wada hadal iyo walaaltinimo iyo wanaag in lagu dhameeyo fiican laakiin adinkoo dad meesha degan oo annaga degan aan lahayn u garbinaya nooguna soo duur xulaya inaad ku soo degtaan Itoobiya ku soo degto ama ku qabsato Hiiraan naga daayo walaalayaal taas heshiiska kuma jirto heshiiskaas ninka saaxan waa ku qalday jenaraal dhulkan 30 kiiloomitir ee aad ka hadlaysay la soo galayo gudaha gobolka Hiiraan arintaas ma cadeynin madaxdii ka hadashay magaalada Feerfeer waxa ay sheegeen beerayar yar oo la isku haysto oo qabiil isku haystaan in daaqsintooda la joojiyo adigu xagee ka keenteen arintan waxaan ka keenay dokumentiga lagu heshiiyay ku cadda dokumentiga wuxuu ku qornaa Itoobiya dokumentigaasay ku caddahay dokumentigaasay ku qoran tahay waa la turjumi karaa waa la akhrin karaa wax cad oo waadaxa waaye hadda ka hor dokumentigaas 2 goor oo soo noqday wana toor cadi jeeyta loo leeyay labada goorba waa la saxiix diiday markaan saddexaad uu saxay dabageed arrintu ma aha marka beer waa ka weynta Soomaaliya waxaan u sheegayaa arrintu waa dhul qabsasho kilinka shanaad waa dad Soomaaliya laakiin ma madax banaana daakhiliye haystaan federaalka Itoobiya hoos tagaan haddii Soomaalnimo aanu heshiin lahayn waa dad dawladnimo kale ka soo jeedo okay ma hoos dhigayna marka magacayaga dawladda Itoobiya Hiiraan inay intaasoo kiiloomitir ku leedahay maana la sharciyeyn karo cid sharciyeyn kartana ma jirto wixii meeshaas lagu sharciyeyna waa baadil haddii dhacdo qorshaha aan arkaya aniga ee ciidan ee warqadan daba yaal oo ah haram cas in laga soo daadiyo meesha lagu soo daadiyo meeshaas beeraha ay ku yaalaan oo xoog lagu maqooniyo dadkan qorshahay ku jirtaa ninkaas ay idin sheegayo qorshaha ugu jirtaa oo Fahad Yaasiin hadduu isku dayo qorshahaas Soomaaliya waxa ogaataan wixii meeshaas ka dhaca dhibkeeda kilinka shanaad iyo Fahad Yaasiin iskale oo iskarabsaday jenaraal arinta askarta in halkaas la keenayo wax heshiis oo ay ku jirtay ma jirto xagee arinta ka heshay adigu heshiis qarsoodi uu ahaa oo barnaamijkii hore ku qayaxnaa ama daba yaalay heshiisyada marka la samaynayo heshiisyada number 1 number 2 number 3 number 4 loo sameeyaa ama A B C D loo sameeyaa heshiiskan balaankan la sameeyay digiisii waay balan D oo ah markii arintaas la soo siixo meesha in ciidan la keeno Soomaali ah oo haram cas la yiraahdo oo haram cas ay ku talaabsato in dadkan ay xoog ku maqooniso iyo kilinka sanad ciidamadooda wada socda taas waa qayaxan tahay waa caddahay waa wax hawshan laga rabo meeshaas dhulka ah
la tegay waxaa la sheegay in qabaa'ilo weliba dad beeraleeya oo qabiilada halkaa jooga ah ay ku dagaalameen hadda waxaa la yidhi beeraha dhulkaas waxaa la sheegay in dhiigooda lagu kala istaajinayo in lasii joojiyo beerashadooda maxaa arrintaa ku diidaysaa dhiigga la kala joojinayo oo soomaali in la kala badbaadiye ah waa wax aad u fiican wa waxaan diidi karna ma aha laakiin dhiig ma waxaa ku kala joojinaya in aniga dhiig iga daadiso taas dhiig joogsi maaha dhiigga waxaa lagu joojin karaa isbahaysigan aad noo samaysateen oo annaga nala ku ciqaabayo oo nala ku dilaayo inaad horta dib u joojisaan oo aad kala hadashaan dadka arrintan ay ka go'do hadda waxaad kala hadasheen dad inay ka go'in oo aad kala hadashaan dad ay ka go'aan dhiigga waxaa lagu joojin karaa waxa is haysto waa soomaali waddanka laisku haystana waa soomaali kelinka shanaad maxaa ka galay maxaa soo dhexgeliyey hawshaan hawl ceebeed waaye madaxda kelinka shanaad madaxweynaha kelinka shanaad waxaan aga digayaa in walaalnimada uu dhowro dadnimada uu dhowro sharafka uu dhowro xuduudyadii ingiriiska uu dhigay talyaaniga uu dhigay soomaali ay og tahay inuuna soo dhaafiyo jenaraal aad baad u mahadsan tahay arrimaha beerahaas markaan intaa uga tagno muddo 5 bilood gaaraysa ayaad halkan adiga iyo saraakiisha iyo askartiinu aad ku sugantihiin weli waxaad dhahaysaa Hirshabeelle waa diiday maxaa soo kordhay Hirshabeelle waa diiday maxaa halkan dib ugu soo kordhay waxaan ugu soo kordhay diidmada Hirshabeelle maanta magaalada waxay ku tahay baa la ogyahay Hirshabeelle maanta qof xawaala ama qof reehiirana oo raba ma jiro Hirshabeelle waxay ku xabisan tahay gobolka xabsi kor ka furanay ku jirtaa dadka macaamil lama leh ma soo dhexgeli karto shaqo ma qabsan karto dhuumasho inay wax ku qabsato ma ogiye wax cad ma qabsan karto okay mar hore iyo mar dambe waxaan leeyahay Hirshabeelle ha ka baxdo hiiraan jenaraal marka intaas oo waliba dhowr mar aad ku celcelisay marka laga soo tago adiga iyo saraakiishaadu hadda wadahadal diyaar muutii inaad gashaan oo waliba aad la samaysaan maamulka dhisan ee Hirshabeelle oo la hadashaan cabashada aad qabtaan aad u sheegtaan maya ma qabno inaan Hirshabeelle aan la galno wada fadhi iyo wada hadal sababtoo Hirshabeelle waxa u qorshaysan dilkayaga dhibaatadayada dhaawacayaga iyo in dhulna laga qabsado Hirshabeelle marnaba la fariisan mayno mana wada hadlayno waxaan leenahay naga guurto waxay idinku eedeeyaan in mashaariic badan oo gobolkan laga fulin lahaa aad adigu caqabad ku tihiin oo ay ka mid yihiin in biyo xireen la sameeyo in shaqo abuur la sameeyo waxyaabo noocaas ay idinku eedeeyaan taas aad ma arkaysaan waxaan ogsoonahay 4 sano oo la soo dhaafay iyo 4 horeba wax mashaariic ay hiiraan ka fulin ma jiro waxay mashaariic ay yimaadeen jeebka la gashan jiray tuuga kala qaybsan jirtay wax ummadda la gaarsiin karay ma jirin waxaa cad marka jidadkii iskoolaadkii caafimaadkii intii la rabay mashaariicdaas wax looga qabto wax looga qabtay ma jiro annaga caqabad kuma ahin ee ayaga caqabad ku ah Hirshabeelle mashaariicda waxaan jeclaan lahaa in dadku saa u fahmo jenaraal Soomaaliya waxa la isku haystaa arrimihii doorashada waadna la socotaan sidaan malaynayo howlaha doorashada iyo arrimahaas bal ka waran sidee adig waxay idila muuqdaan arrimahaas doorashada waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto dadka taariikhda Soomaaliyeed oo dhuloola dadka cilmiga leh dadka ahalka ah Soomaaliya waa og yihiin Soomaali in laga xoreeyay xilligii isticmaalka magaalada Hiiraan gobolka Hiiraan waa og yihiin madaxweynihii sharafka lahaa ee ugu horeeyay mudane aadan cabdulla cusmaan in laga soo doortay beledweyne waa og yihiin madaxdii ka timid Hiiraan madaxda ugu muwaadinsan Soomaaliya inay maantana waxaa taagan wax kastoo la qabanayo oo Soomaali loo qabanayo
riihiina inay ka madax bannaan yihiin uun loo yeerin UN-ka waxaan u sheegaa heshiis aan annaga ku jirin ma dhici karo heshiis aan annaga waxba ka ogeyn ma dhici karo hadduu dhacana waa qaadacnay dowladda federaalka iskuma ficnin ayadana waxaan u sheegaa heshiis reehiilaan aysan ku jirin hadduu dhaco ka mid maahay federaalka bannaankaan ka istaagay soomaaliyaan nahay xaq baan u leenahay meesha soomaali lagu heshiisiinayo iyo danaha soomaaliya la rabo in la gaaro taladeedina wax ku leh bulshada waxaan u dirayaa soomaali meel kastay joogto inay diiddo qaadacdo xuduudaheeda inaan lagu soo xadgudbin min raas gambooni ilaa raas caseer inay ilaalsadaan xuduudahooda haddii faragelinta xuduudda la dhaafi waayo dhib badanaa dhacaya dhiig badanna waa daadanaya taas waxaan leenahay kuma habboona soomaali qoladaan hadda naloo soo kiristo kelinka shanaad war walaalaan nahay dad soomaaliyaan nahay laakiin etoobiya ku hoos jirtaan ra'yigan wuxuu ka suurageli waayey hirshabeelle adinka yaa laydinka suuragelin aad buu mahadsan yahay jenaraal abuukar xaaji warsame iyo saraakiisha kale ee halkan ku sugan oo aan ka wareysanaynay xaaladaha guud ahaan dalka soomaaliya gaar ahaan hirshabeelle iyo weliba arrimihii ugu dambeeyey oo ay ka mid aheeday heshiiskii dhex maray hirshabeelle iyo dowlad deegaanka soomaalida aad baad u mahadsantahay jenaraal